بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسان إذا كين بخيارتا أنا داوانا سايميل كاستواد عالم كجا سبتهين با كل سنة وهذا داود يا البرنامج شر جرايد وأي قبتين قار كمدا وضياشا كسو جيدا ديجانا دا شبه دا هوسة إمي كلام معمول قبلات كونفور القلبات دوان لقى دواقي كهر أنت أنا إذن تسين أما أنا idin barin martida halkan caawa ku sugan guud ahaanba dhulka Soomaalida tan iyo intii ay dhacday dawladii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariiste ayaa waxay ummadda Soomaalida waxay ku soo jirtay dhibaatooyin aad u badan dagaalo sokeeye dagaalo qabiil maamul kooxeedyo qaarkoodna ay qabiil yihiin qaarkoodna ay yihiin kuwa ku dagaalamaya magac diineed dawlado kala duwan oo ku meel gaar ah ayaa la soo dhisay dhawaanna waxa la dhisay dawladda federaalka Soomaaliya oo bedeshay dawladihii ku meel gaarka ahaa ilaa iminka waxaad moodaa in waxyaabo badan aan ka saxmin dhinaca Soomaaliya gaar ahaan marka la eego maamul goboleedyada oo qaarkood aan dawladda raali ku ahayn oo qabqabsi badan jiro qaarkoodna waxa ka cabanaya dadka degan deegaanada ay maamulaan iyadoo ay taasi jirto waxaanu caawa diiradda barnaamijkeenan ku saareynaa maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dadka dega waa dhul beereed in badanna ay dad soo lahaayeen haddaba bal barnaamijkan oo marti ay igu yihiin oday maxamed abuukar geytaan oo dhinacayga midig fadhiya dhinaca bidixdana waxaa iga fadhiya oday cusmaan cali cusmaan alfare isaguna waxaa fadhiya habiil cabdi haybe oo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka ee Horn of Africa amaba geeska Africa hadba sida aad u taqaanaan waxaanu barnaamijkan caawa daawadayaal kaga hadlaynaa maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dhulka loo magacaabay gaar ahaan shabeellada hoose oo aynu wada ognahay inuu yahay dhul beereed haddii aan ku soo dhaweeyo ugu horeyn maxamed abuukar geytaan oo dhinacayga fadhiya kusoo dhawow hoonka batiifi marka hore waa dhawahay shabeellada hoose waa dhul beereed dabcan Soomaalidu de waxay deganaa dhulka muddo dheer ka hor dawladii Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariiste dad baa deganaa oo lahaa xilligii dawladdu jirtay dad baa deganaa oo lahaa laakiin tan iyo intii ay dhaceen dagaaladii sokeeye waxaad moodaa in waxyaabo badan ay isbedeleen oo dad hanti lahaa dad kale la wareegeen dad deegaan lahaa dad kale ay la wareegeen bal si ay u fahmaan dadka ina daawanaya shabeellada hoose iyo beeraha ku yaala iyo deegaan ahaan faahfaahin kooban naga sii waa mahadsantahay waa ku mahadsantahay saad mataqaana igu soo jeedisay barnaamijka marka hore dagaaladii sokeeye waxay dhaliyeen mataqaana mashaakil fara badan oo aad iyo aad u badan oo bulshada Soomaaliya ay aad iyo aad ugu dhibtootay qaarna la xaliyay qaarna weli taagan intaas waxay u badnaayeen horta mashaakiladaas waxay u badnaayeen dil iyo dhac ka sokow dhul la kala qabsado beero la kala qabsado guryo la kala qabsado yay u badnaayeen shabeellaha hoose saad u tiro adigaad mataqaana warbixinta aad ku bixisay shabeellaha hoose wuxuu ka tirsan yahay koonfur galbeed state maamulka lagu magacaabay oo ka kooban Baayo Bakool iyo shabeellaha hoose laakiin caawa mid aan ka hadlayno mise mid aan rabo warbixinta aan ka bixinayo waxay ku kooban tahay shabeellaha hoose shabeellaha hoose oo dadku waa beeraley saad u tiri waa beeraley u badan marka waxaa dhacday beerihii dadweynihii ay lahaayeen oo mataqaana maxalliga taariikh badan soo wada maray yaa waxaa muran badan ka yimid kadib markii dad gobolka aan u dhalan xoog ku soo galeen beerihii ay ku qabsadeen marka beerahan shabeellaha hoose oo hadda aan rabo inaan warbixintan ka bixiyo haddii taariikh ahaan aan u tilmaamo beerahan waxay ahaayeen beero ay leeyihiin mataqaana beelaha hadda dagaalka kula jiro beelo ka soo duulay gobollo kale beerahaas markii hore waxaa laga qaday oo laga qabsay mise laga ijaartay uu Talyaani ka ijaartay beeshaan la yiraahdo beesha Bimaal oo shabeellaha hoose degan oo beerahaas lahaa Talyaani baa ka ijaartay waqti lagu ballansanaa
ijaarkaas wuxuu ku ekaa 50 sano inuu socdo wuxuu ku ekaa 75 1975 buu ku ekaa laakiin waxaa meesha soo galay oo meeshii qabtay dowlad military ah dowlad military oo aan aqoonsanin wixii hore beelaha heshiisyadii beelihii ay la galeen mustacmarkii dhulka haystay dhulkii oo dhan marka waxaa laga dhigay dhul dowladda ay mataqaanaa gacanta ku hayso dowladda ay leedahay ma aha laakiin dowladda ay maamuleyso ayadoo arrinta ay meesha taagan tahay waa dagaaladii sokeeye waa tii ay dhaceen oo meeshii mataqaanaa la kala cararay la kala bowday dad meel walba loo kala baxay marka qolooyinkan hadda aan sheegay dhulkii beerihii bay qabsadeen beerihii bay mataqaanaa maxaa la yiraahdaa ilaa muddo haysteen horta beeraha oo hadda mataqaanaa dagaalada kiciyey sababaha dagaalada kiciyey waa beeraha noocaas ah oo hadda la haysto oo lagu dagaalansan yahay beerihii inooga kaca iyo dagaal baa ka xignaa waa hagaag waan kuu soo noqonayaa laakiin si dadka barnaamijka daawanaya ay inoo fahmaan beerahan markii uu dhammaaday xilligii ay beesha aada magacowday ee biyamaal ay ka kareeyeen gumaysigii talyaaniga markii uu ka kacay dowladdu markii ay la wareegtay qaabkii hore waxbaa iska bedelay oo dadkii baa weli beerahoodii lahaa dowladduna way maamuleysay sidii talyaanigu u maamulayay mise dowladdu si buuxda bay ula wareegtay halkaa isbedelka koowaad ee dhacay aan fahano si dadkuna ay u fahmaan wax wey horta talyaanigu uu maamulay wuu ku intifaacayo maamulay asaga lahaa dadkana waxba siinayay lahaa dadkii mataqaanaa oo heshiiskii hore la galo wuxuu dadkan inay beerihii mataqaanaa ayaga beerihii maxaa la maamulku wax ka wadaan oo ka shaqeeyaan wax ka qaataan oo beerihii ayaga si dadban ay gacanta uga hayaan dowladdii militariga marka ay timid oo dowladda militariga meesha soo gashay xooga wixii waa isbedeleen oo dowladda ma aqoonsaneen heshiiskii talyaaniga iyo beeshii meesha degan meeshii inuu dadkii meesha deganaa ma aysan gelin beerihii waxaa laga dhigay maxaa la yiraahdaa iskaashatooyin waxaa laga dhigay adiga mataqaana beer ay dowladda gacanta ku hayso sidii baa loo bedelay laakiin taas meesha kama saareyso oo meesha kama bixinayso si fiican baan ku fahmay markii ay dowladdii gumaysigu ay wixii ka dhigtay iskaashato markii dowladdii dhacday ayaa beelahan imika qabsaday ay la wareegeen beeri miya ay beeri xoog ay xoog kula wareegeen waa hagaag si fiican baan ku fahmay waayahay waan usoo noqon doonaa saad u aragto xalka iyo waxyaabaha kale ee aad doonayso insha allah biidn illahi tacala inaad barnaamijka kaga hadasho oday afar aan usoo noqonayaa dabcan dee ma qarsoono oo ummadda soomaalida dhibaata ku habsatay ilaa iminkan waxay soomaalidu ka degilaaday bay dad badan yidhaahdaan waa dhibaatooyinka iyo dulmiga ay soomaalidu maanta isku hayso ama reer ha ku hayo ama maamul reer ha ku hayo ta ugu wanaagsanna marka ilaahay dee laga helo in dad kastaba dulmiga laga daayo ay wixii ay xaq u lahaayeen ay cadaalad isbaadumala ayuunbaa dadka dee culimada fahansan siyaasadda iyo diintaba ay sheegaan in marka meesha cadaalad ay timaado u wanaag iman doono sidee baad u aragtaa dhibaatada in ilaa iyo imika ay taagan tahay in dad beere ay leeyihiin ama guryo ay leeyihiin ay dad kale haystaan maamul goboleedkii halkaa ka jiray iyo dowladdii dhexana sida uu adeera sheegayo aanay waxba ka qabanin taas waxa waaye dulan yaan u arkaa beerahan sidii odagaas u sheegay talyaana laga ijaaray dowladda maxamed siyaad markii meesha ay qabsatay waxay kula wareegtay danguuda lagula wareegay beerihii hadda waaye biimaalkii way qayliyeen waxay yireen dowladda ayana gacanta ku qabanayso ilaa waqti wixiina waa nila celinaa iyadoo tii ay taagantaha haddina dhibaatadan yaa ka daba timideen ha ahaatee dhibaatadii yani oo waxba beerihii nimankaana ku habsaday markii yani maxamed siyaad asbaxay nimankaana yani beerihii ku habsaday ilaa al-aana weli ayagaa gacanta ku hayo waxaan leeyahay maamula la heli doonaa maamulkii oo yani oo shabeellaha hoos wuxuu noqday nin oo ayaga xaggoodii oo u leeco oo ayaga wax la wado
marka sida aan hadalkaa ka fahmayo waxaad leedahay maamul goboleedkan imika ka taliya koonfur galbeed Soomaaliya ee uu madaxweyne Shariif Xasan uu ka yahay madaxweynaha iyada oo isagoo gacan ka helaya dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayuu beel kale ka haysata dhulkeedii oo garabation uu garab siinaya habil kusoo dhawow barnaamijka gudoomiyaha xisbiga shacabka Horn of Africa geeska Africa بسم الله الرحمن الرحيم وأنا هرتا مركب ورسالة بعمر سنتاي برنامج هذا وصول ويسي وحان ربائنا نسعد أو بأكلت كريه وح حالة مرجينية أو دن وحوي مركب ورسالة دولة الصومالية كترت أونهين دولة قرن دلك وحاكترت دولة بلد نيمان مدحة أو kuraasidii wadanka ugu sarsareeyay ku fadhiya oo nidaam beeleed ugu howlgalaya inay beelahooda uga faa'iideeyaan laakiin habeen dawladda waxa lagu soo doortay waa qaab beeleed weeye beel kasta oo Soomaaliyeedna waa ku jirtaa laakiin talada sare ee go'aanka waxa iska leh oo sharcigu siinayaa madaxweynaha prime minister kuna cabinetkii iyo dawladdii maamulkeedii oo dhan buu u sareeyaa marka madaxweynuhu markuu soo doorto nin isaga loyal u ah oo wuxuu isagu yiraahdo kaliya u sameeyo oo aan ka daba hadlin waxa imanaysa inuu wuxuu doono ku amar ku taaglayo laba ra'iisul wasaare hore oo la bedelay labaduba way booqdeen gobolkan waa markii ugu horeysay ee niman madax ah sidii qarannimo Soomaaliyeed u dhalatay madax ay booqato magaalada Marka labadii ra'iisul wasaare ugu horeeyay xukuumadan ugu horeeyay Saacid Buhani ugu horeeyay meesha tagay 100 oday baa la fadhiistay oo u sheegay xaaladda dhabta ah ee gobolka ka jirta ballan buu qaaday 100 askari in loo tababaro oo booliis ah 300 oo ciidan ah oo ciidamada militariga ah loo tababaro oo ciidanka qaranka loogu daro wixii lagu soo ballamay oo dhan waxa hor istaagay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha maxaad ku cadeynaysaa habiib wallahi iyadoo qoraal la hayaa ra'iisul wasaaraha arrimihii uu maaragtay problemka ugu furmeen baa number 1 ka ah aaditaanka uu marka aaday ra'iisul wasaarihii labaad oo Cabdiwali Sheekh ahaa isaguna wuxuu ninkii kaliya labaad ee meesha intuu tagay ballantii uu soo qaadayna fuliyay waxa ugu weyn ee gobolka loo hortaagan yahay arrimihiisana way noo cadahay waxa weeye beesha deegaanka ugu badan ee qowmiyadda ka soo jeeda direed dawladda meelaha sare maadaama ku jirin awoodii sare oo dhan laga haysto waxa la rabaa dhulkooda in la boobo oo la qabsado dhulka la dabacsan diiday habiilo hadii aad leedahay beesha waa beesha ugu ballaaran ee deegaanka koonfur galbeed inay ka qayb galaan maamul goboleedka ka jira meesha maamul goboleedka way ku jiraan laakiin maamul goboleedku maadaama uu yahay maamul goboleed ku meel gaar ah si ku meel gaar ah baa dusha looga yimi oo loogu doortay hal shakhsi oo Shariif Xasan ah maamulkii cabinetkii baa la dhisay laakiin institutionkii dawladda oo dhan ee maamul goboleedka ma dhisna saddexdii gobol dadkii matalayay say tahay nidaamka uma hayaan Shariif Xasan waqtiga inta badan wuxuu ku qaataa Muqdisho ama dibadda ku qaataa institutionkii dawladeed ee maamul goboleed lahaayo dhan lama dhisin baarlamaankii lama dhisin madaxweyne ku xigeen ma dhisna xafiisyo dawladeed lama haysto maamulkii dawladeed ee sare ee dawladda sare ah maadaama uu dhisan yahay wixii madaxweynuhu soo jeediyo iyo wax maaragtay beeshii meeshan madaxweynuhu ka dhashay danaha gaarka kala ahayd deegaankan waxay wadato oo dhaqaale isticmaalaysa ayuunbuu soo faar Shariif Xasan faraha kula jira oo raali galnaya marka waxa leedahay beeshan kale ee saa aad sheegtay u badan deegaanka iyagu xidhiidhka awood iyo maamul toona gacanta kuma hayaan cidba wax ma guud ahaan dhibaatada imika Soomaaliya ka jirta iyo maamul goboleedyo badan iyo deegaano badan in wali wax la kala haystaa saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa baad leedahay in Soomaaliya laga helo meel kasta nabad waarta waxa ii muuqda horta marka ugu horeyso waxa weeye cadaalad dawlad cadaalad sameynaysa oo madaxweyne qaran ah oo madax qaran oo ummadaas oo dhan u siman
oo qofku markuu madaxtinimada hayo wuxuu madax u yahay dadka ummadda Soomaaliyeed ee wadanka ku nool oo dhan buu madax u yahay ilaa ay timaado madax qaran oo qarannimo Soomaaliyeed wada oo dana Soomaaliyeed ka shaqeynaysa oo tala Soomaaliyeed wada horta problemkan ma dhamaanayo laakiin taariikh baa haraysa waxaa noo muuqda international community-ga ayaa si toos ah wadankan faraha ula jira systemka waxaan ku qasbanahay si cadaalad loo helo international community-ga in la isticmaalo waxaa kale oo aan anigu shakhsi ahaan u soo jeedinayaa dhammaan shacabka geeska Afrika meel kasta ay joogaan dowladaha dariska ah dadka ku jira ee dadkan la dhashay la dulmayo ama Soomaaliland ha noqdeen ama Djibouti ha noqdo ama federaalka Ethiopia dadka ku jira kilika 4 iyo kilika 4 ha noqdo ama dowladda federaalka dadka ku jira ha noqdeen in si toos oo buuxda loo soo farageliyo arrintan waa hagaag wad maasan tahay waxaan u tagayaa adeero Gaytaan daawadayaal waxaad daawanaysaan si toosa barnaamij aanu kaga hadlayno maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dhibaatooyinka qaranka Soomaaliya ka jirta iyo dhulka iyo beeraha iyo ganacsiyada la kala haysto hadda doonaysaan barnaamijka ka qayb qaadana waxaad naga soo wici kartaan telefoonka iminka shaashada kaaga muuqda hakad ma gelin kartaa waxa hayirba midii dambe hadda habil ma taqaana meesha ma geli karto oo su'aasha doonayaan ku weydiiyaa waxa weeyaan si toos ah ayay nimanka barnaamijka ugu jirnaa markaas su'aashan doonayaan ku weydiiyaa waxay tahay sidee baad u aragtaa adigu nin odayaba tahay oo weyn oo dadkii maanta nabadda Soomaaliya la filayay dhinac kasta ahaatay inay wax ku taraan ba tahay ahaan iyo aqoon ahaanba maxaad ku talin lahayd koonfurta galbeed ee Soomaaliya dhibaatada aad ka dhawaajisay ee ka jirta sida lagu xalinaya horta waxa lagu xalin karaa cadaalad la raadiyo oo cadaalad ma taqaana maxaa la yiraahdaa wax lagu qabto xamar waxaan aragnay guriga la kala haystay dhul la kala haystay waa tartiib waa la xaliyay ma taqaana wixii guriga isku haystay dadkii dhulkii lahaa gurigii lahaa waa loo celiyay kii haystay waa laga qaaday kii lahaa baa loo gudbiyay la siiyay beerahan waa inay sidaa noqdaan maamulkan hadda la dhisay oo hadda ma taqaana Shabeelle maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed Soomaaliya sheeganayo arrinta ugu horeysa uu qabanayo waa inuu xalliyo dhibaatooyinka jira dhibaatooyinka keenay dagaalada socdaa oo lagu dhamaaday oo ma taqaana mashaakilada badan dhaliyay waa in horta xal loo helaa xalka maxaa kamid ah labadan waa labada dagaalama ee meesha ku dagaalamaya gar ma wada laha mid baa gar leh bal horta kii garta lehena farta lagu fiiqo kii gardarnaayna farta lagu fiiqo kadib in hantida la kala haysto sida xamar wixii loo haysto dadka loo celay in beerahan dadkii lahaa loo celiyo dadkii iska lahaa oo maxaa lahaa beeraha lahaa in loo celiyo kow in maxaa la yiraahdaa dadka hadda haysta runta loo sheego la yiraahdo meesha ka dhaqaaqa midda kale oo aan ka digeynino waxa weeye in dadkan aan loo aqoonsanin maxaa yeelay haddii la aamusnaado waxaa la yidhi arrin dhacayso arrin hortaada ka dhacaysa dadka aamusto raalli baad ka tahay wey ujeedadeeda hadda beeraha kan haddii oo sidatan ayna sida lagu dagaalamayo qolooyinka haysto uu ka aamuso maamulkan ka aamuso waxaa muuqanaysa inuu maamulkan raalli ka yahay arrinta sida hadda ay tahay in beerahaas loo haysto marka beeraha waa in dadkooda loo celiyo kow in hadda gobolkan hadda statekan hadda la dhisay waxaa soo bixi doona maamul waxaa la yidhaha macaawinooyin loo gudbi doono beeraleyda wixii kaloo matala iskaashatooyinka kalluumaysta in macaawina loo gudbi doono waa in macaawinooyinkaas la beeraha lagu bixinayo waa inay qaataan oo in la siiyo dadkii beeraha lahaa oo aysan marna dhicin in macaawinooyinkaas loo gudbiyo kuwa beerihii xoog ku qabsaday maxaa yeelay haddii beeraha kuwan xoogga ku haysta dee macaawinooyinkii horumarinta gobolka
ayaga la siiyo waa loo aqoonsaday midaan ka digayna taasa oo afeef naga ah taasa ah in beerahan marna reerahaas aan mataqaana wax ko haye marka maxaa la yidhaahdaa arrinta midaasaan ka digaynaa midaasaan mataqaana leenahay beeraha kow dadka ilaahay ha loo soo celiyo maamulka ha aqoonsado maxaa la yidhaahdaa statekan la dhis ha aqoonsado beeraleydan inay dhulkan beeraha ciddi iskale ha aqoonsado ha u soo celiyo wixii horumarin iyo wixii hadda yimaad waxana dadka beeraha leh ha loo gudbiyo waa hagaag aada iyo aad ay ilmaansan tahay cali cusmaan afare aan adiga ku imaado marka ay dee dhibaato dhacdo in odayaasha iyo culimaa awdiinta iyo aqoon-yahanku galaan jooga meesha ay dhibaatadu ka taagan tahay baa qurux badan odayaasha beeshan aada sheegaysaan in la dulmiyey oo dhulkoodii laga qaatay ma isku dayeen inay la kulmaan maamul goboleedka meesha ka jira ma isku dayeen inay la kulmaan dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii ay labada arrin sameeyeen maxaa ka soo baxay wax faa'iido ka soo baxay male nimankan beeraha haasto niman deegaanka u dhashay ma aha niman deegaanka u dhashay ma aha waa niman yacni deegaan kale oo ka yimid waay almeena dad wada dego wax waa yacni dhibaato way dhex mari kartaa wax waa kala qabsan karaan ilaa nimankan dagaalkii maxamed siyaad oo lagu bixinayay beeraha nimankii yacni oo kadamba qabsada waay haddaba waxaan leenahay nimankaas wax xaquuq oo meesha ay ku leeyihiin male wax oo yacni maslaxa oo yacni oo noola kala qaadaya male dhulka annagaa leh dhulka annagaa leh marka waayo haddii yacni oo labada qofood oo yacni shaka isku jiro yaa yacni odayaal iyo waxaan la dhexdhexaadi karaa aniga hadda maanta haddii yacni geedii kale maxaa waaye galgaduud haddii aan tago beer dad maku qabsan karaa maya waayo see yacni nin galgaduud ka yimid beertayda yacni oo xoogaas oo wahaysana ma yeeleeno ma kaste mideeda kale shariifkan sidii loo doortay ilaa yoomana haada beesha yacni oo marka oo u dhalatay iyo dadka la deganbo waa la xasuuqa ka dhacay mayoonka kama hadlin hadda waaye muxuu mas-uulna u yahay waaye shariifka waxaan u sheegaynaa in yacni kalsoonida aan kala naqnayno haddii yacni arrintaas dadkii la xasuuqa uu ka hadli waayo 3 maalmood gudahooda kalsooni waa kala naqnayna marka cabashada aad sheegaysaa kuma eka uun dhula kala haysto ee waa dagaalo iyo dhibaato dadka deegaanka dagaal loo geysto taasina way ku jirtaa dhibaato badan loo geysto dadka deegaanka waa hagaag waxaan jecelahay inaan u sheego dawadayaasha inaan isku dayno inaan la xidhiidhno mas-uuliyiinta kasoo jeeda ee London degan maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya hase ahaatee ay noo suurtageli weyday ayna yani u furan tahay inay barnaamij noocan oo kale markii ay diyaar yihiin ay ka qayb qaataan si ayaguna uga hadlaan arrimahan waan kusoo noqonaya hadeero iyarsi habil maamul goboleedyada Soomaaliya kolley dee qaar badan waa cusub yihiin galmudug waa cusub yahay kan iminka koonfur galbeed wax badan ma uu jirin ma isleedahay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka ay keeneen waxa badan dhibaatooyinka bismillaahi raxmaani raxiim walaal waxa weeye waxaa noo muuqda maamul goboleedyada systemka marka ugu horeysa loo marayba inuu yahay system qaldan oo nidaam qaldan dhismahoodii loo maray nidaamka maamul goboleedyada marka ugu horeysa loo gelayo waa inuu ahaadaa nidaam dadka deegaanka ah ay si toos ah usoo dooranayaan cidda matalaysa marka maamul goboleedka haddii dadka dhisaya ayna deegaankaba ka soo jeedin horta marka ugu horeysa mushkilad weyn baa imanaysa waxaa noo muuqda maamul goboleedyada qaar kulligood ma wada ahaa qaar in dadkii deegaanka ahaa ayna shaqaba ku lahaynba wax dadka soo dhisay sida jubbo oo kale xal lagama gaari karo deegaankaas waa deegaanka ugu badannahay dadkayaga excluded wey wax xaqa ay ku leeyihiin ma jirto laakiin habil haddii maamul goboleedkii la dhisaba ciddii iska weydaa ay tiraahdo ma shaqaynayo dadkiina ay meesha joogaan maanta Soomaaliya iyo dhul Soomaalina cid xoog lagu qabsan karaa ma jirto oo xoog in la isku qabsaday iminka waa la dhaafay ma waxaad leedahay dowladda ayaa markaa taageero gooniya siinaysa maamul
lada qaar si ay u barabixiyaan dadka meesha degan waa muhim arrintan in la fahmo maamulka dhisidiisa in dowladda federaalka ah looga dambeeyo dowladdii ugu horeysay xukuumaddii ugu horeysay 10 wasiir ahayd ee uu saacid prime ministerka u ahaa waxay sanad ku adkeysanaysay inay xaq darro tahay oo sharci darro tahay nidaamkii markaas ugu horeeyay ee ka dambeeyay maamuladii hore u dhismay ka dambeeyay maamulkii ugu horeeyay la dhisay ee Jubba inaan waxba maamul goboleedka looga dambeeyay dowladda dhexe Soomaaliya lama waxba lama weyn laakiin sharciga xaqiiqada ka taala maada sharciga federaalka maamul goboleedka ay soo dhistaan dadka deegaanada degan iyada oo ay hagayso dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah nimankii madaxda u ahaa markii ogaadeen inaan cidna waxba weydiinayn oo dowlado shisheeye iska wataan maamulka dhismihiisa Jubba oo magaalada Kismaayo kaliya niman duulaan ku yimi oo dadkii deegaanka ahaa intay ku dul habsadeen ciidan shisheeye isticmaalayo guryihii iyo dadkii iyo dulmi wada in ay maamulka iyagu soo dhisaan oo hal qoys oo nimanka ka tirsan 21 xubnood dad aan dhulkaba degin la siiyo 19 xubnood in dad deegaan kale ka soo jeeda iyagana la yiraahdo deegaankaas 19 xubnood ba iyagana qaadanayaan oo in total hal beel oo 5 beelood ee Soomaaliyeed ee degta dhulka in total ay helaan in ka badan 60% konton ay helaan dulmiga horta ugu weyn meesha uu ka bilaabay waa dulmigaas waxaa noo imanaysa waxaa noo cad barnaamijka weyn ee dowladnimada iyo wadanka qarannimadiisa lagu baabiinayo ee ugu daran horta inuu yahay maamul goboleedyada sababta ugu weyn ee nimanka xukuumadda Soomaaliya madaxda ka ah ay balaankoodii dhamaa u bedeleen oo ay u galeen markii xukuumaddii hore la riday xukuumaddii labaad dhiskii dowladda maamul goboleedyada loo deyn waayay waxay noqotay madaxweynihii intuu Jubba ka dago oo Kismaayo ka dago inuu deal beeleed oo beeshiisa intaa wax waa inay meesha ka dhex muuqataa inuu heshiis noocaas madaxweynihii meesha lagu caleema saaray maamul goboleedka loo sameeyay inuu deal isaga iyo labadooda ah inuu raadiyaba oo deal qaran oo ummadani ku degtaba la iska badaayay iminkana waxba noo muuqda qarannimadii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed iyo xukunkii dhexe ee wadanka oo dhan inuu federaalka guud ahaan u maamulo in baarlamaankuna hawshiisii gabay madaxweynuhuna uuba ku jeestayba inuu beeshiisu maamul goboleedyo yeelato raadadan inuu dalku qarannimo iyo maamulo rasmi ah oo dadka deegaanka soo doortaan inay yeelato meesha marka waxaad ku eedaynaysaa madaxweynaha in uu maamul goboleedada dhismaya uu doonaya qaarkood in dad ka soo jeeda beeshiisu ay ka dhismaan maya waxa weeye waxaa socdo horta challenge madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labada beelood ka soo jeedaan in wadanka sadbursi dowladeed la sameeyo oo laba maamul laba beelood maamulo ay leeyihiin oo midba laba maamul goboleed uu leeyahay oo madaxweynihii iyo ku-xigeenkii iyo wasiiradii iyo baarlamaankiiba ay beel gooni ay yeelanayso oo aan hore u soo aragnay kulli Puntland ha noqoto Jubbaland ha noqoto maamul goboleedka nimanka galmudug ee cusub ha noqoto in mid hor loo soo socdo oo shabeellada dhexe iyo hiiraan ha noqoto in labadii beelood ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ka kala dhasheen in loo kala samaysto laba maamul goboleed oo iyagu gooni u leeyihiin oo dadkii majority-ga ahaa ee labadaas beelood ay sheeganayaan deegaanadoodana ay guud ahaan la dulmo waxa ugu daran ee mushkiladu ka jirto horta waa halkaas waa challenge beeleed baa socda oo madaxdii dhexdooda ka socdo laba beelood maartay maamulo loo sameeyay waa hagaag oday Cali Cusmaan afar hadii aan adiga kugu soo noqdo guud ahaan in maanta Soomaaliya beel la dulmiyo oo ama ay dawlad ama maamul goboleed u dulmiyo maaha wax hore u marnaya Soomaaliya wax cadaalad iyo lagu gaadhayo dawlad loo dhan yahayna maaha maxaad kula talin lahayd maamul goboleedkan shabeellada hoose aan dhahday koonfur galbeed Soomaaliya iyo dawladda dhaxaba horta waxaan baaq u dirayaa saddexda gobol Baay iyo Bakool iyo Shabeellaha hoose
waxaan leeyahay shacbiga ku dhaqan ha ka fiirsadaan shariifka waxuu wado shariifka wuxuu wado waa inay ka fiirsadaan shariifka dan oo kaloo gooni ah iyo wataa maahane dan oo yacni deegaankaas oo horumarkiisa iyo waxyaalahaas midna shaqa kuma laha waa in yacni dad deegaanka oo ka naxaayo waa inaa yacni ay doortaan ayuu gudooda haddii yacni arrintaas la waayo annaga yacni shabeellaha dhex haddaan naho waaba yacni waa ka naqanaynaa shabeellaha bahalkan maamul goboleedka on waa ka naqanaynaa adigoo ku hadlaya magaca anoo ku hadlaya magaca yacni oo beesha oo biimaal waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay baaqaagaas waxaan rajeynayaa in dabcan la daawanayo habiil haddii aan kusoo noqdo xisbiga shacabka geeska africa ee aad magaciisa ku hadlayso guddoomiye ahaan maxaad talo ahaan soo jeedin lahayd idinkula bismi illaahi raxmaan iraxiim horta marka ugu horeysa taladayda waxaan ka horeysiisanayaa inaan u digo xukuumadda soomaaliya waxay wadaa inay khalkhal geliso labada maamul midna uu yahay koonfur galbeed inay burburiso oo ay hoos geyso dad iyada ay gooni u wadato dhinaca kalena in ay somalilan ku furto dagaal qabiil oo dhexdeeda ah iyo maamul ay ka dhex samayso iyadoo oo taageeraysa hal shaksi oo maamulka qaatumo magaciisa wata oo aan deegaankii iyo dadkii iyo shacbiyadiisii iyo deegaankiisii tegi karayn oo meeshii ay si buuxda u kontaroosho somalilan waxaa noo muuqata abaabul dibad iyo gudaba ka socda oo ah in galmudug state iyadoo la isticmaalayo magaceeda xaflada inta la qabto in duufaan qabiil oo maaragtay somalilan lagu kiciyo oo qabiil ahaan weerar loogu sameeyo dhinaca kalena puntland haaf la goosto oo problem lagu abuuro iyadana iyadoo galmudug la isticmaalayo waxaa noo cad marka in madaxweynihii wadanka iyo raggii la talinayay ee villa soomaaliya fadhiyay inay qas siyaasadeed oo badheedh ah ka wadaan guud ahaan soomaaliya marka habiil ma waxaad leedahay maamul goboleedka galmudug state of Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxa ay u taageeraysaa inay qas ku abuurto maamul goboleedka Puntland ee dhisan of course waaba haaf baba dhulkii sheegatayba waxaad dhinaca kalena ma waxa aad leedahay dowladda Soomaaliya waxa ay wadaa qas ay ku dhex abuurayso Somaliland iyadoo taageeraysa khaatumo waa caddahay taasna laakiin deegaano khaatumo way jiraan dad ka cabanayana way jiraan haddii dowladdu ama marar badan madaxweynuhu hadlay wuxuu ka hadlay in nabad wax kasta lagu dhameeyo adigu xisbi ahaan maxaa ku cadaynaysaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay abaabulayso qas ay ka dhex abaabulayso Somaliland iyadoo isticmaalka khaatumo waa noocadahay waxaa la hayaa cajalado recorded ah shirar lagu qabtay oo xukuumadda Soomaaliya rag ku jira iyo baarlamaankaba ku jira oo beesha madaxweynaha ka soo jeeda oo madaxweynuhu kaliya ka maqan yahay intii kale oo dhan ay wada fadhiyaan oo uu Cali Geedi fadhiyo oo ra'iisul wasaarihii hore ahaa in la casumay madaxdii khaatumo oo dhan Muqdisho lagu casumay in fan la siiyo in lagu kiciyo طوفان سياسات Somaliland حل Soomaaliyeed kuma jirto because dawlad muddo jirtay oo awood badan leh oo military ayaa meesha ka jirta military leh dawladdaas markaa la soo doortay one man one vote ku timi oo ama de maamul madax banaan ha noqdo ama maamul Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku noolaan karto ha noqdo oo qof kasta oo Soomaaliyeed safar ku aado uu ku noolaan kara ha noqdo dawlad Soomaaliyeed oo ama Djibouti ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland oo bari ka maalin dawlad noqon karta ha noqoto you never know wadankan waa loo tashaday waxaana loogu tashaday in dawladda shisheeye gacanta loo geliyo wadamo yar yar loo qaybiyo sida Imaaraadka iyo Qatar iyo way noo cadahay marka in laga shaqeeyo dad Soomaaliyeed oo walaaladeena oo deegaankoodii nabdoon yahay oo dhulkoodii maamul ka samaystay in la qaso oo qaar la yiraahdo dhulka badh waa goosanay qaarna la yiraahdo deegaankiini qasban ka abuurayna dawladnimo Soomaaliyeed lama wado laakiin waa maxay xal Soomaaliyeed la wado laakiin maxay faa'iidada ugu jirta dawladda Soomaaliya inay qas ka dhex abuurto Somaliland ama maamulada iyaga ogol federaalka
دولة maxaa ugu الصومالية hagaagaya xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirta maxaa ugu hagaagaya nimanka madaxda ka ah faa'iido Soomaaliyeed ma wadaan qarannimo Soomaaliyeed ma wadaan dan shakhsi iyo dan urur diimeed iyo dan qabaa'il baa la wadaa reeraha meeshan ku shira reeraha si gooniya wax u wata dad baa si gooniya noloshooda high class u noqonaya qaarna sagxadii jiifaan dad baa deegaankoodii dhiig ku daadanaya habeen iyo maalin la weeraraya imikana waxaa la wadaa intii wadanka ka badbaaday oo runtii haaf ah gaalgacyo markaad ka dhaqaaqdo ilaa iyo maaragtay xuduudka Djibouti waa haaf Soomaaliya intii hore loogu aqoonsanaa ama dawladaha kale ha kala noqdeen ama maamulaha noqdeen waxay doontaa ha noqdeen laakiin waxaa noo muuqata dalka intii bad qabtay in la rabo in dabka la saaro siyaasad deadly ah oo dawlada shisheeyana la isticmaalayo ayaa noo muuqata kuwa maamul goboleedyada reeraha samaysanaya ee madaxweynihii iyo ku-xigeenkii iyo baarlamaankiiba hal reer wada yihiin iyo kuwa laba qoys ay qaybsanayaan oo qowmiyadihii dhammaan dhulka deganaa la boobayo xal ma wadaan dawladda dhexe federaalka dawladda aqoonsiga Soomaaliya dunida oo dhan u aqoonsatay way laakiin credibility-geedii oo dhan uu ka lumay maalintii sanadkii ugu horeeyay wixii qabatay inay dib u cunto u burburiso mooyaane dawladdii 10 wasiir ahayd ee Saacid baa ugu dambeysay wax qabatay ka dambeeyay challenge siyaasadeed baa socday Cabdiwali lamaba siinba challenge wax ku qabto oo waa lala dagaalamay adigoo soo koobaya habil dawladda Soomaaliland ma ogtahay qaskan adigu aad sheegayso ee aad leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhex wata Soomaaliland dhexdeed waa ogtahay dawlad horta de intelligent bay wadataa oo sirdoon bay leeyihiin oo maamul de intaasoo sanadood dhisnaayo anigu maba aaminsaniba maamul Soomaali leedahay ama dawlad Soomaali leedahay oo geeska Afrika ka jira oo ka nidaamsan kana abaabulan maamulka ama dawladda ka jirta Soomaaliland anigu ma arag Djibouti ku dhaho dhul ahaan iyo dad ahaanba waxaa muuqata in khilaaf siyaasadeed oo weyn oo dhexdooda ah oo muranka cidda baawarka wadanka qaban doonta iyo doorashooyinka xilliga dhacdoonan iyo waxyaabahan imika ka socda Soomaaliland in loogu hoos qarinayo laakiin ay reality waxa weeye xukuumadda meesha ka jirta way ogtahay waxa jira oo dhan way la socotaa hawsha gudaha kaga furan bay mudnaanta siisay raadadan inay hawshan dibadda ee dalka oo dhan duminaysa inay xoog saarto marka iyo dara dhaqaale sida Djibouti maanta aanay uga hadlaynin waxa ku dhacay shabeellada hoose iyo Iran oo dhaqaalihii Muqdisho yaallay oo dhan baa Djibouti soo dhaca waxa la dhoofiyay waxa la soo dejiyay marka waxa ay muuqata in dana dhaqaale iyo dana siyaasadeed iyo wada hadalla aan macno badan lahayn oo maalin walba la iska daba wareegay iyo group meesha joogo oo group kale isku xiran yihiin oo Hargeysa joogay waxyaabo fara badan baa socda waxa barnaamijka ay u baahan yahay khilaafkaas in aynu ku soo casuuno labada dhinacba waxa daawadayaal waxa aynu intaasi ku soo gabagabeynaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dhibaatooyinka maamul goboleedyada qaar kamid ah ay dadka qaar kaga cawdaan ay u geystaan deegaanada ay degaan waxaan ka xumahay in uu telefoonku aad u badnaa oo jaamaha intii hore ee ku guuleysatay bilowgii barnaamijka waan u mahad celinayaa inta aan u soo galina insha Allah waxaan rajaynayaa inay barnaamijyada kale ka qayb qaataan anigoo Cabdixaafid ayaa barnaamijka la socodsiinaya waxaan igala qayb qaatay oday Maxamed Abubakar Geetano علي عثمان أفرّ هبيل عبدي هيبة وهجوميها حسب الشعب في جيسك أفريقيا هذه يعني لكم هنغير لما تبى ثاني تندبها ودوكم من هذه الهرالك الغضب سلاسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرايتا ميدا باين سين معنا نولو شطاي ميسان كاو